بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله تبارك وتعالى waxaanu bilaabaynaa jalasaad iyo majaalis aanu kaga hadlayno fadhiyaal aanu kaga hadlayno aan bilaabayna maanta axaadiith alqisas an-nabawi as-sahiha. jalasaad aan kaga hadlayno silsilad axaadiithta nabiga ka asaxday ee qisaska xumbaarsan sahih qisas an-nabawi silsilad ku saabsan baan insha Allah tabaaraka wa taala aanu maanta bilaabayna intaana bilaabin qisada bilowgeeda ama midda ugu horeysay waxaan rabaa inaan hordhac yar aan bixiyo qisada sideeduba qisaska ama quraanka ku jirto ama axaadiithta nabiga ka sugnaato qisasku qisada quraanka iyo qisada xadiidka asaxay ee nabiga ka asaxay wuxuu xambaarsan yahay wuxuu kaga duwan yahay wararka iyo sheekooyinka dadku iyo qisaska kale ayagu waa xaq weeye labadaas. quraanka qisadu soo rara waa xaq, xadiidka nabiga ka asaxay qisadu xambaarsan yahayna waa xaq saabida wey oo qofka muslimka inuu rumeeyo waajib ku tahay. fawaa'ida ay qisasku leeyihiin waxaa ka mid ah alcibar, cibro qaadasho iyo wacdi iyo waantoon. tusaalahaan xadiidku wuxuu ka sheekayn ama aayaddu waxay ka sheekayn la halaagay ama dhibaato ku dhacday ama dad qaab maartay xuntay sameeyeen dhibaato ku dhacday, idan wuu ku waansa qaadanayaa qofka cibra ugu sugan jidka qofka mara inuu waxa la kulmaayo. fawaa'ideeda waxaa kaloo ka mid ah qisasku nufuustu way jeceshahay qisaska iyo waxyaabaha dhacay ka sheekayntooda naftu way jeceshahay marka dhageysigeeda iyo inay wacyiyeyso maartay wixii ay fahanto ama ay weelayso baa ku badan. waxaa kaloo fawaa'ideeda ka mid ah inuu qofku iimaaniyaadkiisu ay ziyaadiyo ruuxdiisa ayay qisasku u ziyaadinayaan qofka. markii laga sheekeeyo dad fiican iyo wanaag ay gaadheen iyo guul ay gaadheen qisadooda laga sheekeeyo qofku himadiisa kici dadka inuu tiigsado ku daydo waygii mareenna uu maro suu guusha u gaadho. iimaaniyaadka ku ziyaadaya qofka iimaankiisa ku ziyaadi, daacada ku ziyaadi, wacdi iyo waantoon buu ka heli. waxyaabo fara badan bay qisadu xumbaarsantahay. intaa hordhaca haddaan oga tago saa darteed baan u dooranay mawduuca inuu noqdo majaalis maaragtay lagu daraasaynayo ama lagu soo gudbinayo lagu soo bandhigayo silsilatu axaadiith silsilatu saxiix qisas an-nabawi, silsilad ka hadlaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam qisaskii ka sugnaaday qaybo ka mida. qisooyinkan aan soo qaadan doonno waa qiso la ururiyey. waxaa soo ururiyey oon ka soo xiganay sheekha faadilka caalimka ah la yidhaahdo abu isxaaq al-xuweyni xafidahu llahu tacaala al-athari reer masara oo muxadidka ah weli waa nool yahay. sheekha raxmatullaahi jazaahu llahu khayr xafidahu llahu tacaala ayaa soo ururiyey ilaa maaragtay qiso ilaa xad maaragtay cadad aad macquul u ah oo uu ku magacaabay qisasu saxiixu qisas an-nabawi uu ku magacaabay. qisooyinkaan soo sardin doonna aqlabkeeda axaadiithta ku saabsan horta waa xadiid waxaan soo naqlin doonno dhammaanteed ama aqlabkoodu saxiixaankay ku yaallaan bukhaari iyo muslim. in badanna inaad maqasheen ama aragteen baa laga yaabaa, qaybo kalena kutubta kale warinaysa waana dhammaanteed qiso sugan oo nabiga ka sugan wey. waxaanu bilaabaynaa marka waxaan u qaadanaynaa xadiid baan u qaadanaynaa qaabkaan u akhriyi doonno. xadiidka lafdigiisa akhriyi mayno maadaama ay dadku isku mid wada ahayn oo dad wax akhriya iyo dadaan akhriyin labaduba bay iskugu dhex jiraan. waxaan rabnaa inaan xadiid ka sheegno raawiga warinaya iyo xadiidka kitaabku ku yaallo iyo xadiidka xukunkiisa sixadiisa. intaa markaan sheegnaan qisada macnaheedii oo mulakhasa ayaan soo gudbinaynaa. qisada koobaad ee maanta silsiladeenna aanu ku bilaabayno waa qiso ku soo arooray xadiid saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkii inay warinayaan min xadiidi abi hurayra nabigu ka warinhayo. alimaamu nasaa'i ibnu xibbaan intuu iyo xaakim intuba xadiidka ay soo saareen. lafdigan aan doorannay iyo qisadan qaabkan middan aan doorannayna waa nasaa'i ibnu xibbaan iyo xaakim lafdigoodii iyo maarata qaybtoodii baan doorannay. marka wain kaana xadiidku ama qisadu ay ku sugan tahay saxiixaanka ay ku sugan tahay. qisadan waxay xumbaarsan tahay wuxuu abu hurayre leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu ka sheekeeyey nin aana weligii camal samaynin, waa geeriyo weligii camal ma samaynin, lam yacmal qad maarata khayr ma samaynin ilaa laakiin wuxuu samayn jiray dadka ayuu wuxuu u samayn jiray nin taajir u ahaa ganacsada dadka deyma ka qaadan jiray
shaqaalihiisa markuu diro oo dadkii deymaha ka soo ururiyo uu yiraahdo wuxuu dhihi jiray qofkii wax hayana ka qaada kii aan waxba haynina iska dhaaf u dhihi jiray ama ka suga kii kalena iska dhaafa waxba ku culaysnina wixii dadka u sahlanaado oo ka qaada wixii kalena marka iska dhaafa ilaahay inuu noo dhaafo ayaa laga yaabaa buu dhihi jiray ninka nooca markuu dhintay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa maartay nabiga noo soo naqlinayaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ninkii oo Allah u dhaafay dambigiisa u dhaaf dambigiisa markuu dhintay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yiri annaga awlaa maadaama dadkii aad u dhaafi jirtay annaga awlaa inaan ku dhaafno idan dambigiisa saasa lagu dhaafay amalka khayriga uu sameeyay waxa la yiri amal khayr ma sameeynin illa dadka ayuu deyntu siiyo ayuu siin jiray kadibna wixii sahlanaada ayuu shaqaalihiisa dhijir ka soo qaada xadiidkaas nuxurkiisa markii la soo ururiyo wuxuu ciwaan u yahay waxa la yiraahdo al-ihsaanu ila an-nas wal 'afwu anhum in dadka wanaag loo sameeyo ihsaan loo sameeyo lana cafiyo wixii dhibaato ama culays oo xaqooda maartay saaran inaad ka cafidid deyn ku lahayd iyo wixii la midka al-ihsaanu ila an-nas hay kamid tahay shariicadan al-ihsaanu ila an-nas wal 'afwu anhum والتجاوز منا عن معسرهم إحسانك ضدك الله سميه وشريعتنا من مكارم الأخلاق وأستانت شريعتنا ولاد هاي يوم أرت محاسنتي ونجيالك شريعتنا ولاد هاي إني ضدك وناق الله سميه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وعيه أحب الناس إلى الله وما أرت أنفعهم للناس ضدك وحو إلهي أوجع عليه هاي وكضدك أنفعه إذا حديثكم حكفى إذا سن إن ضدك وإحسان الله سميه يوناق الله سميه inay maartay darajaadka waxyaabaha ugu waaweyn inay tahay iyo shariicadana astaamaheeda ugu waaweyn waxa kale oo ka faa'iideysanaynaa asbaabaha uu qofka muslimka aakhira uu ku badbaado inay tahay ihsaanka dadka aad u sameynayso min a'zami asbaab najaati al-'abd yawm al-qiyamah al-ihsanu ila an-nas inayta asbaabaha aakhira lagu badbaado ama qabriga ha ahaado ama qiyaamada markii la tago uu qofku ku badbaado ilaahay ugu naxariisto inay kamid tahay dadka wanaag loo sameeyo wanaag dadka loo sameeyo waxa kale oo qisadan ka faa'iideysanayna amalka yasiirka ee xasanaadka yasiirka haduu qofku khaalis yahay oo ilaahay dartii u sameeynayo oo maartay ayna ku jirin dad ha ku arkeen isna ku jirin amalku haba yaraada mar haduu ikhlaas yahay inuu ilaahay sayi'aadka ugu dhaafayo hayla ninka waxa la lam ya'mal khayran qat bali waligi amal ma sameeynin illa dadka ayuu deynsiin jiray طبعا حويان نك مركو ليلة خير ما سمين أهل التوحيد بوها وفان أهل التوحيد هين لو مضعف إذن أهل التوحيد بوها سيد رواية ذكر عبد الله بن مسعود ورين هي ولا هي مركا إلا توحيد كمويان أهل التوحيد بوها وحي توحيد كسر على خير ما سمين شرين إلا إحسان كذاتك وسمين شرين مويان إذا مركا صار درت هذا وحالي عمل كيركع أو خالص كضاعة وإلهي درت هذا سمين يسي وإلهي سبحانه إلهي وبركين ذنوب هذا إلهي كل عفايا ذنوب هذا أي إلهي كل عفايا waxa kale oo qisadan ka faa'iideysanayna qofka dadka wanaaga amra wanaag baad qof tiri samee idan wanaagi aad amartay qofkii haduu sameeyo adigii waa lagu qoraya Allah iskale wanaag adigana waa lagu qoraya waxa yeelay ninkaas dadka loo dhaafo asaga amarka bixinay awaamirta asaga bixinay oo yiri shaqaalihiisu dhigi jiray dadka deymaha ka soo qaada wixii salaana wixii kale uu dhaafo amar buu asaga intuu taga amalka laba baashiri jiray sadarteed waxa la amalkaad gacantaada ka bixisay يكين شقالها على مرتوت السدا يسدا السماء لبضوا بعمل هذا سميسي ويانا أجر كذا بدهليسا لقول إيه ما هيو قف كلا سمية هذيك ما دام أمرتي إني دتك العافية ده حولها نوضوها الله هيد يوحد قعنت كبحس اسكمد ويان حصول الأجر للآمر به وإن لم يتولى ذلك بنفسه بيع علماء ذلها أجر كينو قفك هلا يا أميركها ضدنا يسا عمل كاسو الله باشرين با وحيابها إنه كفى إذا سنن خلاصة دي النحر كان ربا أنا سوق بيا وحيت حديث كنوش شيء جاية إحسان كدتك الله ما أرتي الله سمين هيو عاد ما أرتي منزلة ده يقيمها يوانا قوله نكاس لم يعمل خيرا قط باليلي إلا أنه كان يدين الناس دتك يدين شري ما أرتي جناح سيسي بعشرة ديسا مركز وليه شري شغاله سا دتك مركز تكتان وحي أي كسهلنا هذا كقاضي وليه شري خذوا ما تيسر واتركوا ما عسر بوليشر وحي سهلنا هذا كقاضي وحي كوعد كذا إسكدافة وتجاوزوا بوليشر لعل الله أن يتجاوز عنا سلاس وليه شري مركو انت غيريودينا إلهي سبحانه وتعالى أضافي
oo ku yidhi marka maxaad samaysay wax camala iyo wax khayr oo samaysay markuu dhintay ma samaysay baa lii markaasuu sheegay oo yidhi anu wax kale oon ogahay ma jirto ilaa dadka markaan deymaha aan siiyo laga soo qaadaan dhihi jiray shaqaalahayga wixii dadka u salaanaada ka qaada wixii ku adkaadana iska dhaafa inuu ilaahay subxaanahu watacaala noo dhaafo ayuu alla marka mudan yahay markaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qad tajaawaztu canka maanta aniga waan kuu dhaafay idan khulaasadii nuxurkeed ikhwatii fillaahi runtii waa waxyaaba naftu maartay shawq gelinhaya oo jacayl gelinhaya ixsaanka dadka loo samaynhayo iyo wanaagga noocu doon ahaado ixsaanku dhaqaaluu noqon karaa cilmi buu noqon karaa caqli buu noqon karaa xoog buu noqon karaa ixsaanku waa fara badan yahay idan qof kastoo waxaad ku dadaashaa inaad bini aadamka ixsaan aad u samaysi isku daydi inaad anfacdi inta karaankaada ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa ilxusna wa sifaati alculaa inuu maaragtay naga dhigo kuwa ummadda u khidmeeya ixsaanka sameeya aana ka tegin cafiska sameeya ku dadaala inay dadka ay anfacaan oo maaragtay ay wixii wanaaga ay kari karaan usoo qadima idan maanta xadiidkaas qisadaa xumbaarsan ayuu jalsadeennu ay tahay ilaahina subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu maaragtay nagu anfaco wajazakum allahu khayr hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu